gobolkan geeska Afrika intii la doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia wuxuu keenay oo ku dhawaaqay fikrad aad u wanaagsan oo ah la wada nabdo hal la iskaashado hal la walaaloobo geeska Afrika ka baxay dhibaatada oo ismaad horaba Soomaaliland taa waa u taagnay abiidba waa u taagnay haddana taa waa ku hambaryeynayna waana loo ogol waxa jira fikrad kasta oo wanaagsan oo keento waxa kor yimaada carqalado ama challenge waxaan u ka rajaynayaa challenge ka hor iman doona iyo kuwa jiraba inay ku dhamaadaan si nabadgelyo ah oo xagga wanaagsan loo wada dhaqaaqo dawladda Ethiopia wadaynu jaarnahay jaarkaaga ilaahay baa ku dooray ma dooran kartid waxaan mar walba u taaganaynaa nabadgelyo kula noolaado iyo walaaltinimo loo siman yahay oo midna aanu mid dulmin maanta hawsha weyn ku jiraana waxaan u rajaynaynaa wixii dhibaatooyin hor taagan ka yimaada gudahooda in nabad ugu dhamaato geeska Afrika wixii carqalad ka yimaada in nabad lagu xalliyo oo xagga wanaagsan iskaashiga aynu u dhaqaaqno halkan waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliland oo dhan gees ilaa ka gees oo ka tihiin ardayda halkan fadhida iyo gobolka awdal haddii waxa jooga dalka dad badan oo Ethiopian afkay doonayaan ku hadlaan waxaan codsanayaa in dadkaasi ay ammaan ku joogaan dalka Soomaaliland oo aan loo dhaqmin si cadaalad oo hadday xagga wax ka dhacaan aan caadifada ina qaadin qofka dalkaaga kugu jooga diin iyo dhaqan iyo dadnimo waa magantana xeer baynu ka leenahay ku islaam iyo ku dhaqanba qofka dadka inal degan haddaynu Soomaaliland tahay waa in nabadgelyadooda aynu dhowraa xageena waa dhaxdhaqaaqeen haddii ay dad cusub inoo yimaadaanna dhinac kasta waxa inaga soo talaabeen yawan baa laga soo talaabaya xadka laga soo talaabi karaa xuduudo badan bay leedahay mar walba waxa inoo ballana in dadka inoo yimaada ee ama inoogu yimaada abaar ama qolaad ama si kale ganacsi ama wax tacliin ama wax qabsi inaynu ula dhaqanno si wanaagsan oo si marti loo dhigi jiray ah oo sidii maganta loo hayn jiray taasi waa codsi aan u diray dadka Soomaaliland oo dhan waxaynu aad soo dhaweynaynaa dadka waxbarasho caafimaad safar deegaan dalxiis inooga yimaada walaaladeenii aynu Soomaaliya isku aan jireen marka Soomaaliya nahay waa dadkeenii sida ay ku yimaadaan Soomaaliland iyagana waa soo dhaweynaynaa wax onaada naga dhaxayaan haddaynu Soomaaliland nahay waa arag baynu ku nahay colaad iyo dagaal iyo wuxuu dhalo waxaynu aragnay waxay leedahay nabadu iyo wanaag cid walba waxaynu ugu horseeynaa dulqaadka nabadda wax wada qabsiga iyo xagga wanaagsan aynu eego si aad ugu xanaato taabo subscribe iyo kambanada